وعلى wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii xogta daasoon oo aynu ku soo qaadanayno qodobo ay ka mid yihiin sida ay kacdoonadii carabta ka bacdi dawladihii carabta ee soo jireenka ahaana meesha uga baxeen kuwii ay kacdoonyahanadu doonayeen aanay wadamada badankoodii uga hirgelin qaramada midoobay oo ka digtay in colaadda Liibiya isu bedeli karto dagaal gobolka wada gaadha waa samaxay ujeedooyinka ay kala yihiin dalalka faragelinta military ku sameeyay Liibiya macluumaad kale ayaa raaci doona ku soo dhawaada barnaamij sababaha la xidhiidha dagaalada sokeeye cadaadiska dadweynaha lagu hayo faragelinta shisheeye kororka maleeshiyaadka hubaysan iyo xiisadaha dhaqaale xumo ee soo noqonaya dartood dunida carabtu waxay u muuqataa inay khatiro weyn ugu jirto burbur iyo inay kala googo aan hore u soo marin ay ku dhacdo iyadoo kacdoonadii carbeed ee bilaabmay 2011 ay fashilmeen marka laga reebo dalkii ay ka bilaabmeen ee Tunisia oo isna habeen iyo maalinba la gilgilayo oo la doonayo in laga dumiyo hanaanka dawladeed ee rayidka ah si aanu dib ugu soo fidin sidoo kalena ay halka yihiin ololayaasha lagaga horjeedo kacdoonadii shacab ololaha oo ay wadaan militariyada iyo siyaasiyiintii dawladihii kacdoonada lagu riday kuwaas oo ay dhabarka dambana ka taageerayaan oo dhaqaale la daba socdaan isbaahaysiga ay majaraha u hayaan Sacuudiga iyo Imaaraadku tusaale ahaan Ciraaq oo ay ilaa maanta kacdoonada dadweyne ka socdaan ayaa caqabado badan kala kulantay arrimo ay ka mid yihiin joogitaanka ciidamada shisheeye iyo jiritaanka maleeshiyaad hubaysan oo qaanuunkii dalka u yaalayba ka sareeya soo noqoshada ururkii dawladda islaamiga ee Daesh oo dagaalo cusub ay ka dilaacaan iska horimaadka Mareykanka iyo Iiraan ee ciidda Ciraaq colaadda Suuriya ka socota khilaafaadka siyaasadeed ee u dhaxeeya wadamada ku yaala gobolka ay Ciraaq ku taalo iyo arrinta ugu daran oo ah qiimo dhaca ku yimid shidaalkii oo ahaa isha ugu ku tirsanaa dhaqaalaha wadankaasi tan iyo wixii ka dambeeyay markii ay isbaahaysi military oo 40 dawladood ka koobnaa oo uu hogaaminayo Mareykanku ay ugu soo duuleen Ciraaq sanadkii 2003 oo u rideen dawladda dhexe ee dalku lahaa ee madaxweyne Saddam Hussein oo isagu 24 sanadood soo xukumayay Ciraaq kama tisqaadin wadanka nidaam dambe oo dawladeed oo adag oo la isku halayn karo inkastoo ay doorashooyin dhacaan oo xukuumadda baarlamaanka iyo golayaasha deegaanka la soo doorto haddana dawladaha doorashada ku yimaada kama gudbaan caqabadaha aynu kor ku soo sheegnay iyo kuwa kale oo hadba lagu abuuro dhanka dalka Suuriya haddii aynu eegno iyada dawladeedii hore waa dhisan tahay 9 sanadood oo colaadaha oo dalkaas ka soo jiray waxaana difaacay xulafadeedii Ruushka iyo Iiraan laakiin waxa meesha ka baxay waa dadkii iyo dalkii inkastoo oo Bashar al-Assad uu guul military ka gaaray dagaalkii uu kula jiray kacdoonyahanadii ka soo horjeedeen haddana wadankiina waa burburay dhamaantii 3 meelood oo hal meel dadkii Suuriyana waxa ay u qaxeen dalka dibadiisa dhaqaalihii Suuriya ee awalba colaadaasi baabi'isana waxa uu hadda dhibaato hor leh kala sii kulmay qaanuunka Qaysar ee cunaqabataynta ee uu Koongareeska Mareykanku ku soo rogay qaanuunka oo mamnuucaya inay cidina la macaamisho nidaamka dawladeed ee Suuriya ka jira isla markaana ka hor istaagaya cid kasta oo isku dayda in dib u dhis wadanka ay ku samayso waxa kale oo wadankaasi dhibaato kala kulmaya ciidamada shisheeye ee ku sugan iyada oo lagu qiyaaso inay ilaa 9 dawladood oo kala duwan ciidamo ka joogaan gudaha Suuriya ha ugu badnaadeen ciidamada Ruushka iyo Iiraan Mareykanka iyo xulafada military ee horkacaya ee gobolka ka howlgala oo ay Faransiiska iyo Jarmalkuba ka mid yihiin waxa ay ku sugan yihiin deegaanadii gumarada u ahaa dhaqaalaha guud ee wadankaasi oo ay gacanta ku hayaan kooxda Kurdiyiinta Suuriya waxaana ciidamada shisheeye ay haystaan ceelashii shidaalka Suuriya oo ku yaala waqooyi bari Suuriya oo ah dhulka ay ka taliyaan Kurdiyiinta oo xulafo la ah isbaahaysiga Mareykanka halka ay isla mintaqada ku yaalaan dhul beereedkii wadanku lahaa ilihii biyuhu ka iman jireen iyo xarumihii dabka laga dhalin jiray gacan ku haynta ciidamada Mareykanka ee Suuriya ku sugan gacanta ku hayaan ceelashii shidaalka ee wadankaasi waa arrinta dhiirigelisay inay Ruushkuna qabsadaan oo ciidamadooda caloosho u shaqaystayaasha xiriya uga sameeyaan xarumo badan oo shidaalka Liibiya laga soo saaro waana Liibiya oo iyada lafteedu kala qaybsan oo colaadana ka socdaan
faragelin shisheeye oo ballaaranina ka jirto oo la kala taageerayo labada dhinac ee reer liibiya oo kala ah xukuumadda iyo generaalka mucaaradka xil ay colaadda liibiyana saameyn ballaaran ku leedahay gobolka oo dhan oo ay dalalka dhinacyada ka xigaana wadnaha farta kaga hayaan natiijada uu ku dambayn doono dagaalkaasi oo tusaale ahaana ay generaalada xukuumadda Masar iyo Suudaan ka baqayaan in haddii ay xukuumadda rayidka ee liibiya wada qabsato ciidda waddanka uu habdhaqankooda siyaasadeed ee madaniga ay ku soo fidin karaan Masar iyo Suudaan oo ay taageerana siin karaan kooxaha iyo xisbiyada siyaasadeed ee rayidka ee mucaaradsan labada xukuumadood ee militariga hogaamiyo warwarka la mid ayaa isla waxa uu haystaa saddexda dawladood ee Carbeed ee dhanka kale ka xiga Liibiya oo ah Tunisia, Algeria iyo Morocco kuwaas oo ku dhaqma siyaasadda rayidka ee doorashooyinka loogu tartamo iyadoo Tunis iyo Algeria la doorto madaxweynaha Morocco ay tahay boqortooyo baarlamaaniya oo uu awood leeyahay ra'iisul wasaare ka soo baxa xisbiga hela aqlabiyadda kuraasta baarlamaanka wadamadani waxa iska eegayaan oo ka horjeedaan in Liibiya ay ka dhalato dawlad militari oo kale talisnimo ku timaada waxaana ay hor taagan yihiin in qaab inqilaab oo hubaysan lagu rido dawladnimada rayidka ee ka jirta ee ay tiirarka u yihiin xukuumad baarlamaan iyo golaha sare ee dawladda oo ay soo raacaan golayaasha deegaanku jiritaanka iyo ku dhaqanka hay'adaha dawladeed ee rayidka ahina waa waxyaabaha ay ka soo horjeedaan Sacuudiga iyo Imaaraadku ee ay meesha fog iskaga moosayaan ee ay qaybtan uga yihiin colaadda Liibiya ee ay u taageerayaan Generaal Khalifa Haftar halka ay Turkiga iyo Qatar oo iyagu taageera xukuumadda Liibiya ay ku ciilqabaan inqilaabkii 2013 lagu sameeyay dawladda kacdoonkii shacab ee dalka Masar ka bacdi la doortay ee madaxweyne Maxamed Mursi iyagoo difaacidda hay'adaha dawladeed ee rayidka ee Liibiya ay qayb uga yihiin Turkigu dagaalka waddanka ka socda qaramada midoobay ayaa sabtidii ka digtay in xiisadda Liibiya ay isu bedesho colaad gobolka oo dhan wada gaadha gabadha xogayaha guud ee qaramada midoobay wakiilka uga ah Liibiya Stevena Williams ayaa ka digtay in sababo la xiriira faragelinta dalalka shisheeye ay dhici karto in colaadda Liibiya isu bedesho dagaal weyne gobolka wada saameeya Williams oo sabtidii ka hadlaysay magaalada London waxay sheegtay in shacabkii Liibiya uu si isku mid ah u burburay una cabsanayo colaadiina ay ka daaleen oo nabad doonayaan laakiin ay u arkaan inaanay gaaritaanka nabadaasi gacantooda ku jirin oo ay wadamada kale ee ku lugta leh colaadu go'aanka gacanta ku haysta waxaana ay dagaalka Liibiya ku tilmaantay inuu yahay dagaal dhex maraya dalalka ku tartamaya gacan ku qabashada awoodda dalka iyo saameyn ku yeelashadiisa waxaana ay diiday inay dagaalka ku tilmaanto mid sokeeye iyadoo intaa ku dartay inay Liibiya weeday madax bannaanadeedii hay'adda qaramada midoobay ee ay gabadhani Liibiya u joogtaana gaar ahaan golaheeda amnigu waa kii markii ugu horeysay sanadkii 2011 soo saaray go'aankii ciidamada NATO loogu dirayay Liibiya ciidanka oo markii dambena lagu dumiyay dawladda dhexe ee waddanka ee madaxweyne Muammar al-Gaddafi oo 40 sanadood soo xukumayay Liibiya tan iyo wixii xilliga ka dambeeyayna waxaa ka jirtay qalalaas siyaasadeed iyo degenaansho la'aan amni hay'adaha dawladeed ee maanta ka sii bidhaamayana sida xukuumadda iyo baarlamaanka waxaa lagu soo kabkabay heshiiskiisa kheyraad ee qaramada midoobay dusha ka maamuleysay ee sanadkii 2015 iyadoo haddaba waddanka Yemenna ay ka jirto xaalad murugsan oo siyaasad ahaan dalkaasi kala qaybsan yahay colaadana ka socdaan dawlad ka wada talisaana ka jirin tan iyo wixii ka dambeeyay markii la riday dawladda Cali Cabdalla Saalax oo sodomeeyo sanadood hayay xukunka waddankaasi saadaalaha soo baxayaana tilmaamayaan inuu shacabka Yemen sanadka 2020 la kulmi doono macaluul baahsan wadamadii khaliijka ee faragelinta militari ku sameeyana ay u taag waayeen oo xaaladda uga sii dareen ayaa haddana halkaa waxa ah wadamo kale oo Carbeed oo halis ugu jira inay dumaan sida Lubnaan, Masar, Suudaan iyo Algeria wadamadan oo ay ka jirto kala qaybsanaan siyaasadeed iyo mid bulsho oo ballaaran ahna dalalkii laga riday xukuumadii ugu madada dheeraa sida madaxweynihii Masar Xusni Mubaarak oo 30 sanadood xukumayay waddanka Umar al-Bashir oo isna 30 sanadood xukumayay Suudaan iyo Cabdicasiis Bouteflika oo 20 sanadood ka soo talinaya Algeria mana jiraan dawlado cusub oo bedelay iyadoo ay Masar iyo Suudaan dib u qabsadeen
nidaamyo keligoo taliyayaala oo la mid ah kuwii kacdoonka dadweyne lagu riday dalka aljeeriyana inkastoo kacdoonkii dadweyne sababay hirgelinta nidaam dowladnimo oo rayda haddana waxaa furfurmay bulshadii waddankaasi oo qowmiyado u kala baxbaxaysa waxaa kaloo jirta in faransiiska oo ay ciidamo ka joogaan dowladaha dhanka hoose ka xiga liibiya sida niger jaad iyo maali uu isaga laftiisu ka cabsi qabo in kooxaha dagaalyahanada ee siyaasadoodu islaamiga tahay ee liibiya ka dagaalamaya ay u tallaabaan waddamada afrikaanka ah oo khatar geliyaan joogitaanka ciidamada faransiiska ee ku sugan waana sababta ay faransiisku muddada dheer u dhisayeen khaliif alxaftar ee ay ugu gacan siinayeen inuu qabsado xukunka liibiya waxaa kaloo jirta inay labadan isbaahaysi ee dhinacyada liibiya kala taageeraya ay isku horimaado kale oo istaraatiijiyihii u dhexeeyaan oo tusaale ahaan turkigu ka hortegayo in ruushka oo hore uga fadhiistay turkiga dhinacyada koonfurta iyo bariga oo ciidamo ruushihii ay joogaan xuduudaha turkigu la leeyahay suuriya iyo armeniya horena ay u qabsadeen jasiiraddii krimiya ee muslimiinta turkiga ay deganaayeen ee yukrain ka tirsanay ahaydna jasiiraddii ay dowladdii islaamiga ahayd ee ka dhisnayd qarnigii 14aad ee taariikhda miilaadiga oo xilligaa gacan ka helisay dowladdii cusmaaniyiintu ay labada jeer ku duuleen ruushka oo jebiyeen ciidankii boqortooyada oo qabsadeen caasimadda moscow qabsashadan dambe ee ruushku 2014 jasiiradda qabsadeenna waxay ku timi cadhada iyo ceelkaa hore ee ay ruushku u qabeen krimiya iyo dadka ku nool waana cadhada ay ruushku sidoo kale u qabaan turkiga oo iyana u aanaynayaan inay qabsadeen oo haystaan caasimaddii madhabtooda ortodokiska caalamka oo ahayd magaalada istanbul oo ka hor xilligaa islaamku qabsaday loo yaqaanay konstantin xarunna u ahayd imbaraadoriyadii bisanta oo ay dhulka griiguna xilligaa ka mid ahaayeen waxaana jirtay inay ruushku bartamihii qarnigii 19aad soo weerareen krimiya iyo turkigaba mar uu keligii socday iyo mar uu waddamo xulafo badan ka kooban la socdayba hadafkiisuna ahaa inuu qabsado magaalada istanbul ilaa maantana uu hadba dhinac ka degayo turkiga halgankaa uu ruushku ugu jiray inuu qabsado magaalada istanbulla waa kii ku kalifay inuu maraykanka ka iibiyo gobolka alaska iyadoo haddii aanay turkigu dhaqaalahooda iyo cududooda milatariba muddo kooban kaga dhigin qaar ka mida kuwa ugu fiican caalamka ay ruushku qabsashadoodii krimiya ka bacdi dagaal ula badheeri lahaayeen turkiga si ay uga qabsadaan magaalada istanbul